wararkii ugu dambeeyay naga soo gaariyay magaaladaasi London ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in halkaasi caabuqa coronavirus ugu geeriyooday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray marxuum Maxamed Salaad ayaa shalay toole la xaqiijiyay inuu qabo caabuq waxaana uu ugu dambeyntii dhakhtarku xaqiijiyay inuu geeriyooday cudurka COVID-19 waa muwaadinkii afraad ee u dhashay Soomaaliya ee dalka Ingiriiska ugu geeriyooday caabuqaasi coronavirus dhibaatada xooggan ku haya dunida guudkeeda sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in xaaskiisa marxuumka geeriyooday iyo caruurtiisa ay la xanuunsanayaan cudurka COVID-19 inkastoo dhakhtarku uu sheegay inay caafimaad qabaan guud ahaan tirada Soomaalida ee la xaqiijiyay ku nool Ingiriiska kuwaasi oo la xanuunsanaya caabuqa coronavirus ayaa la sheegay tir ahaan inay gaarayaan 16 qof ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadaame iyo wiilka uu dhalay Daahir lagu magacaabo ayaa kamid ah Soomaalida London ugu nool Soomaalida London ku nool ee qaba caabuqa coronavirus boqortooyada UK ayaa laga duwan gelinaya kiisaska caabuqa 12658 caabuqa coronavirus shalay oo kaliyana waxa uu geeriyooday 113 ruux Xamse Dabaare Star TV